maalmaha kamid uu nabigu ku yiri nin ansaariye buu ka yiri inantaada ii guuri aniga markaasuu yiri ninkii ansaarigi nacamma wa qurratu aynin buu oo nabi allah adiga ayaa ku heli kara buu adiga ayaa ku heli kara markaa buu nabigu anigu mar rabiye waxaan u rabaa julaybiib wuxuu ahaa nin magaalada madiino dhan guri walba lagaga sheekaysto la yaqaan dabeecadiisa oo dabeecad waxa lagu yaqaan xoogaha akhlaaq xumo ah dadka ayuu la kaftami jiray xataa haweenku la kaftami jiray markaas dadka madiino dhan waxa isku sheegeen gabdhihiina julaybiib ha iskaga dhisin waa nin dabeecadiisu aan fiicnayn oo dumarka meelaha iska marmarayo hadduu doono la kaftama marka waa nin akhlaaq xun weeyaan akhlaaqdiisaasi aan wanaagsanayne waa lagu sheekaysanaya madiino dhan baa ku sheekaysanaysa waa ninku nabigu leeyahay ninkii reer madiina inantaadii aniga isii markaasuu saxaabigu yidhi nabi allah adiga ma inantayda ayaaba ku heli kara haddaad adigu tidhi isii waaba nicmad ilaahay aniga isiiyo indhahayguna way ku raaxaysanayaan inanteediyo xaas adiga ku noqotee hel buu ka yidhi markaasuu nabigu yidhi anigu ma rabiye laakiin waxaan la rabaa buu yidhi julaybiib baan la doonayaa julaybiib markaasuu yidhi xataa ushaawira ummaha hooyadeed baan ka talagelinayay ii kaadi buu ka yidhi hooyadeed baan la soo tashanayay waxaa la yidhi reer madiina curfi dhaqan waxay lahaayeen gabdhuhu haddii ay gaadhaan da'dii gabdhaha lagu guursanayey ninka gabadhaa dhalay inantaa dhalay intuu nebiga u yimaado ayuu odhan jiray inantaydii way qaan gaadhee nebi allahu haddaad inantayda adigu aad doonaysidna waa kuu diyaar haddaad cid kale u doonaysana waa kuu diyaar dadka qofka aad khayr ku tuhmayso inaad inantaada la doondoonataa waa min asunna weeyaan xabsa binta cumar markuu ninkeedii ka dhintay cumar binu khataab intuu socday ayuu cuthmaan u sheeguu ku yidhi haddaad doonta inantayda xabsa waan kuu dhisi markaasuu cusmaan yidhi waan soo fikiri isku noqday markaasuu yidhi yaa cumar waan fikirayoo waxaa ii soo baxday sanadkaa maanta inaanan guursane hay sugine walaal iga raalli ahow jazaaka allaha khayr buu ka yidhi haddana maalin kale cumar socdo abubakar buu la doontay xabsa wuxuu yidhi yaa abaabakar sidiiq haddaad doonta inantayda xabsa waan kuu dhisi waa kuu diyaar markaasuu abubakar uu ka aamusay limaada muxuu cumar inantiisa xabsa uu cuthmaan iyo cumar iyo abubakar ugu bandhigayaa ma taqaanaa curfiga beriga muslimiintu ay lahaayeen waxaa ka mid ahaa inantu hadday gaadhagda'dii gabdhaha lagu guursanayey waxaa u soo haasaawaya aabbaheed walaalkeed adeerkeed iyo abtigeed halka innagu aan leenahay soo eegeego waxaan idhahnaa ya aabba mid shaqeeyo uun dee ya weliba hay-adaha u shaqeeya hay-adaha ogaa hay-adaha kharash badan beryahan moogtaha laa ilaaha ila allah soo eegeega maaha adaal inantaadu inay dibadda u soo baxda maaha waqarna fii buyuutikunna inantaadu waa inay xagga dambe fadhidaa jilbaabka ugu horreeya gabadha muslimaddu ay xidhanayso waa inay guri joog noqoto weeyaan baahideeda wixii dibadda ka yaallana markay u baahan tahay ama aabbaheed ama walaalkeed ama inankeeda ama adeerkeedu aabba la dhashay ama abtigeed hooye la dhashay ama walaalkeed baa soo kaxaynaya oo soo raacaya limaada maxay u soo raacayaan maahin tasallut iyo saytarayn gabdhaha la saytaraynayo oo ikhtiyaarka laga qaadaya hamoodin inan yahay muslimadii bal adigu ku ilaalinaya waa gaardagoorkaagii waa kii ku ilaalinayey adigu kaa ilaalinaya cadowgu kaa ilaalinaya tuugtuu kaa ilaalinaya dadka mujrimiintuu kaa ilaalinaya fasaqaduu kaa ilaalinaya sida lacagta iyo dhaymanka meel qaaliya loo dhigo meel aan la arkayn loogu rido ayaa gabadha muslimadda ee mu'minadda ay diinta islaamku meel fiican u dhigtay aday ku ilaalinayaan innagana maanta waxaa laga dhaadhiciyey diinta islaamku dumarka ikhtiyaarkii bay ka qaado aqalada fadhiya bay tiri aqalka fadhi sharaftaada aqalka inaad fadhida kugu filan sharaf bay kuu tahay guriga inaad fadhido soo doon doona maaha abibakr cumar isagaa u doon u haasaaway inantiisii inanta aad dhashay dadka aad khayr ku tuhmayso inaad u bandhigtaana ceeb maaha maanta inaga xaggeenna waxaa loo arkaa hadduu ninku inantiisa uu ragga u yar u soo haasaawo
waxaa lays odhan buu isleeyahay war matu cagaluhu hayaa nagu camaynaya cumar baa socdo cuثmaan u bandhigay cuثmaan uu jawaabay abubakar buu u bandhigay abubakar waa ka aamusay muddo yar kadib waxaa soo doonay xabse radia allaahu canha nebi maxamed baa soo doonay calayh salaatu wasalaam daadna markaa buu nebigu guursaday markii guurkaasi uu dhammaaday ayaa maalin dambe cumar iyo abubakar baa kulmay abubakar baa hadalka qaatoo yidhi yaa cumar malaha qalbiga waxbaad iigu haysaa markaasuu yidhi haa waan kuugu hayaa horta abaan cuثmaan u bandhigay wuu ii jawaabay jawaab waafi uu siiyey adigana waa kuu bandhigay waa adiga aamustay haayana imaad odhan mayana imaad odhan markaasuu abubakar ku yidhi anigu waxaan ogaa nebi maxamed oo xabse hadal hayaan ogaa markaas sirta nebiga inaan sheegaan diidanaa hadduu nebigu xabse uu dhaafi lahaa uu iska dayni lahaana wallahi anaa kaa guursan lahaa buu ka yidhi saasaa markaa nebigu ku ogaaday reerkan reer madiina reerkan ansaareed gabadhoodu inay qaan gaadhay waxau nebigu ku ogaaday baa la yidhi nin kastoo ansaariya hadday inantiisu qaan gaadho intuu nebiga u yimaaduu odhan jiray yaa rasuulallah gabadhaydii way gaadhay da'dii gabdhaha lagu bixinaye haddaad adigu doontana waa kuu diyaar haddaad cid kale u rabtana waa diyaar saasuu nebigu markaa u weydiista uu ku yidhi inantiina ii dhisa markaasuu yidhi nicima wa quratu caynin yaa rasuula allah waa nicmad ishayduna way ku raaxaysaniye waad heshaa markaasuu nebigu ku yidhi anigu maaha waxaan rabee waxaan u rabaa julaybiib julaybiibna waa ninkaan nii soo sheego waa la yaqaana dabiicaddiisa markaasuu julaybiib haa uu istaagay ninkii inanta hooyadeed baan la soo tashanaya dee baliikaada markaa buu nebigu yidhi haya la soo tasho markaasuu ninkii saxaabigii islaantiisiibuu u yimiday wuxuu yidhi inanteennii waa la soo doonay ayaa soo doonay bay ku tidhi markaasuu yidhi rasuulki ilaahay baa soo doonay markaa bay tihi nicama wa quratu caynin wa quratu cayn wallaahi waa nicmad waana ku raaxaysanaynaa indhahayna ku farxaye waan siinay nebi maxamed markaasuu yidhi nebigu naftiisa uma rabo markaa bay tihi hadda ayuu u rabaa markaasuu yidhi julaybiib julaybiiba saasay tidhi julaybiib markaasay tidhi may julaybiib ma siinin inantayada hebel baa soo doonay waan u diidnay hebel kalaa soo doonay waan u diidnay julaybiib waa ninkaa taqaanid adiguna ee magaalada madiine o dhan lagu hadal haye lagu ballamay inaan inanba loo dhisin waar julaybiib u dhisi mayne qof kale nebigu ha keeno hadalkaa markay ku tiru ninkii soo jeestay ayay inantii oo xagga dambe ku jirta ayaa tidhi hooyo aabba anigay dhegaysta ma nebi maxamed baad amarkiisa celinaysaan bay ku tidhi ma nebi maxamed calayhi الsalaatu wasalaam oo aniga i bixiyey oo julaybiib yidhi siiya miyaad amarka nebi maxamed celinaysaan oo diidaysaan wallaahi bay tidhi hee halka uu nebi maxamed raalliga uu igala noqday aniguna raalli baan ka ahee i bixiya bay ku tidhi markaasay ku tidhi islaantii waa run hadalkaasiye orodoo nebiga u sheego ku dheh halkaad raalliga adigu baad kala noqotay inantayadii annaguna raalli baan kala noqon markaasaa saxaabigii baa nebigu u yimid o yidhi nebi allow inantii julaybiib waan siinay guurkii uu julaybiib u diyaar garoobayo ayaa waxaa dhacday fasca waxaa la maqlay cadow inuu soo socdo ciidankii baxaayey buu markaa julaybiib u raacay markii la dagaalamay ee gaaladii la jebiyey la laayey ay baxsadeen ee meydkiiyo dhaawicii la kala guranayo ayuu nebigu saxaabadii ku yidhi war anigu nin baan tabayaa war nin baan arki lahay markaasaa laga yidhi nebi allow waa ninkee markaasuu yidhi julaybiib awaya markaasaa meydkiisi la doono waxaa la arkay isagoo 7 mushrikiina intuu dhulka dhigay isagiina markii dambe lagu daro meyda oo dul yaalla markaa buu nebigu yidhi wallaahi kaase julaybiib anuu iga mid yahay aniguna isagaan ka mid ahay 3 jeer ayuu nebigu hadalkaa ku celiyey anigu julaybiib anuu iga mid yahay anna isagaan ka mid ahay waa maxay sidii aan raalliga ka ahaa buu u dhintay weeyaan waa iga mid maalinka qiyaamahana jannada waa rafiiqayga weeyaan markaasuu nebigu gabadhii buu xasuustay gabadhii cajiibka ahayd markaasuu ilaahu gabadhaas ilaahu arsaaqadda sida roobka ilaahu kaga dhig khayrka ilaahu sida roobka kaga dhig maciishadan ilaahu cidhiidhi weligeed ha ka gelin buu rasuulku yidhi gabadh
carmala oo ka baraka badan oo ka xoolo badan bay yidhahdeen asxaabadu nama soo marin gabadha mooyaane laana ducadii nabigeena ku dhacday sal alla alay wasalam